in badan inoo dul qaadatay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadii aan isleeyahay xilkoodii bay garteen maanta arrintaa la hor keenay golayaasha rayigooda cabiray iyagoo masalaya shacbiga reer Somaliland xildhibaanada dhib kastoo soo gaadhay jilgil kastoo soo gaadhay xasaanadoodii oo lagu tuntay waxay la tahay shacbigu wuu idin og yahay wuu idin abaalgudi doonaa wuu idin mahadnaqaya wixii maanta ka dhacay golaha waxay ahaayeen waxaa golayaasha ku cusub kow fadhiga wadajirka ah sida la sheegay asbaab gaara baa golayaasha la isugu yeedhaa annagu xalayna waan sheegay waxaan ku ixtiraamnay un fadhiga wadajirka codsiga madaxweynaha xukuumaddu waxay tiri heshiis baan keenaynaa wasiirka arrimaha dibadduna wuxuu heshiis lama gelin waxaa caddaaday warkii wasiirka arrimaha dibadda broshuur baa la keenay waxayaan yar xayeysiiska ay maaragtay hay'adaha lagu xayeysiiyo dukaamada iyo buuweeka oo arkaysiin dad dushana waraaq halkan lagu qoray cid kala seexatay aan jirin cid ay dhex martay aan jirin cid ay qabanaysan aan jirin sharcina aan ahayn waxa kaloo la yaab leh baarlamaankaygu waxaan ansixiyey balaas weydiiyaan waxaan ansixiyeen marka waxaan leeyahay arrintaasi arrin kayr sharciya baa heedo ka dhacday halkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inaga dooranay waxaan leeyahay arrintaa badbaadadeedu maanta madaxweynaha maadaama aynu dooranay horta inaga shacbiga u tolo madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha Somaliland laba lugood bay ku taagneed horta labadii maanta ka jabtay mid waa ummadda sharciga ku dhaqanto oo dimuqraadiyada ay tahay waxa cadaatay inay sharciga ku dhaqmayn golihii waa laaftuuba xildhibaanadii rayigooda cabirayna golaha hortiisa lagu garaacay anigu gudoomiyanahay golaha baarlamaanku guurtidii iyo wakiiladuba ciidan baa ku qoran oo dawladdu siisay gudoomiyeyaashu ama aniga noqdo ama saleebaan ciidankaas oo anaga naga amar qaata ayuunbaa golaha soo geli kara anigu 8 nin ama 9 kooda ama 10 ba noqdaan wixii maanta halkan ka dhacay waxay ahaayeen waxa laga heshiiyay maraayo ciidan cusub oo kaayagi ahayn ayaa ragana laayay xildhibaanada laayay xaqna aanu lahayn golaha soo gala waa ka xumay saaxiibkii Saleebaan inuu ogolaado ciidankii golaha ahayn oo meel laga keenay oo meel ku urursanaa oo hawshan loogu tala galay inta golaha soo galaan in xildhibaanada hortiisa ku garaacaan aad baan lahayd arrinta labaadna waxay ahayd arrin nabadgeliyo Somaliland labada lugood bay lahayd mid nabadgeliyoha midna dimuqraadiyad waxaan leeyahay nabadgelyada maanta ay ku dambaysa haddii taasi fusho oo saldhig la sameeyo anigu waxaan qabaa wax intaa ka weyn inay jiraan in qarannimadii Somaliland laga noqday baan qabaa goolisitaagii Somaliland in laga noqday baan qabaa waayo ciidan aan heshiiska la gelaynaa ee ciidanka keensanaysa Somaliland waxay u taqaanaa qayb kamid ah Soomaaliya marka waxaanu aqbalaynaa inaynu nahay qayb kamid ah Soomaaliya heshiiska waxa wada gala laba dhinac oo siman shacbiga madan bay ku celceliyeen oo ilaahay saldhig haba la siiyo haddii ay noogu bedelayso اعتراف laba qaran oo isku mid ah noqonayno
markaa dee way hagaagaysaa dhibaatooyinka ku noqnoqon maayo xalay baan ka hadlay saldhig military iyo saameyntiisa waa garanaysaa waxaa loo isticmaalayaa arrimo military cid baa lagaga duuli doonaa ciidan baa soo degi doona amisom inay soo degtaaba laga yaabaa dee laftigeedu waayo inagu ma xukuno dhulkaa ma aynu xukunno maaha waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya soo jeedinayaa arrintaasi hal badbaaday leedahay golayaal idin matalayo shacbiga ma jiro wadawada kaarka laba xukuumad dareenkii shacbiga ku shaqeynayso idinka naxaysaana ma jirto madaxweynaha dooranay marka madaxweynaha wuxuu soo jeedinayaa arrintaas inuu dib u eego madaxweyne arrintaas dib u eeg madaxweyne arrintaas dib u eeg xalka kaliya haray waxa weeye diidma shacbi maadaama xukuumaddiina arkaysaan dee golayaashiina arkaysaan diidma shacbi oo midaysani waa inay jirtaa marka shacbiga labada xal unbaa idin haray baan leeyahay labada xal unbaa idin haray in madaxweyne dib u eego wixii halkaa ka dhacay sharci darray ahayd laba in shacbiga dareenkiisa iyo diidmadiisu ay meel marto waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda waxaan si adag u cambaaraynayaa waa markii labaad xukuumadda kulmiye ay xildhibaano xasaanadda leh xidhxidho waxay la tahay sharcigaynu ku kala sarraynaa sharcigaa dhammaanteen naga sarreeya sharciga hala ilaaliyo waxaa kaloo xidhan saraakiil badan oo sharci darro u xidhan oo xisbiga ka tirsan waxaa xalay gurigiisa lagala baxay isagoo carruurtiisa la jooga sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga oo wada garanaysaan bara saabkii hore Hargeysa xamarji wax lagu xidhay iyo waaran loo geeyey midna ma jiro carruurtiiba isagoo la hurdo laga soo qaaday aniga markii la askarta soo qabatay ila soo hadlo askar baa wadatay wiilo dadna taleefankii mal waa laga qaaday dadba badan doona baa idho xalay saldhigyada dhan waa la tagay mar dambe waxa laga soo helay saldhigga dhexe waxaa ka horreeyey guddoomiyihii gobolka Awdal waxaa ka horreeyey saraakiil kale oo sare oo mayor ku-xigeenkii hore ka mid yahay Boorame waxaa la xidhay saxaafad fara badan oo weliba agabkoodiina laga qaaday saxaafadeena cidina wax ma siiso ina ka yara saxaafadda ahi waxaa laga yaabaa inuu kamarad soo bariyay oo saaxiibadiisa iyo ehelkiisa ay soo iibiyeen maanta qaar baa kamaradii laga qaaday qaar baa berbera ku xidhan waxaan soo jeedinayaa dhammaan saxaafadda xidhanna in xorriyadoodii loo soo celiyo shacbiga waxaan ugu baaqayaa in arrintaa masiirkeedu ku xidhan yahay go-aankiina waa in go-aankiinu caddaadaa waa in dareenkiinu caddaadaa waa in diidmadiinu caddaataa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu